Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan idin salaamay daawadayaasha channelkeena ma ogtahay. Abu Xaamid Maxamed Al-Ghazali waxa uu dhashay sanadkii 1850 miilaadiga. Waxa uu ku dhashay magaalada Doos, waxaana uu safray magaalada Naysaabuur si uu ula kulmo sheekhiisii Al-Macaali Al-Jawni oo lagu naanaysi jiray Imaam Al-Xaramayn. Waxa uu ahaa faqiih iyo faylasuuf muslima. Waxa uu lahaa naanaysyo fara badan oo ay ka mid ahaayeen Xujjatudiin, Caalim Al-Awxad, Mufti Al-Umma, Barakat Al-Anaam iyo qaar kaloo badan. Markii uu 34 jirsaday ayaa uu safray magaalada Baghdad, waxaana uu macallin ka noqday iskuul dowladeed. Waqti yar kadib waxa uu noqday sheekh caan ah oo la isku sheegay, ilaa uu gaadhay halka khudbada amba halka fadhiga uu jeedinayo in ay ka soo qayb galaan 400 oo ah culimmadii waaweyneed ee Baghdad si ay u dhageystaan oo ay cilmigiisa u qortaan. 4 sano kadib waxa uu go'aansaday inuu iska daayo wax dhigista oo uu go'o cibaadada Alle. Waxa uu ka baxay Baghdad, waxa uu galay safar dheer oo uu ku kala maray magaalooyinka Dimashq, Qudus, Makka Al-Mukarrama, Madiina Al-Munawwara, Khaliil oo loo yaqaan Tayyiba. Waxa uu qoray buugaag badan oo ay ka mid ahaayeen Tahaafut Al-Falaasifa, Ihyaa Culuumuddiin, Fadaa'ix Al-Baatiniya, Ayyuha Al-Walad, Iqtisaad fi Al-I'tiqaad, Micyaar Al-Cilmi fi Fanni Al-Mantiq iyo qaar kaloo badanba. Imaam Al-Ghazali waxa uu dhintay 1112 miilaadiga. Allah u naxariistee.